Soomaaliya oo isugu timid u midowday dantooda iyo dalkooda iyo guurtooda iyo inay walaaleeyaan dadkooda dhisaan qiyamkiisa iyo karaamadiisa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad baan ugu mahadsantihiin sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa shacbiga Soomaaliyeed oo runtii anigoo Cabdikariin Sheekh Muuse maamaaseeda qalab dhagax baa aad loo yaqaan magacyadan Cabdikariin way wada badan yihiin oo qabashadeedii iyo jariimadii xamar أشخاص يروي جيستي آل وديدي كنتي إسكرب تاعي تنبيركي ولا نمو شيء سوماري أردن بداية كنتي وحي هاي تاريخ لما إلا وانا وخطوصا يساق تلك سوماريات يروي هاي داد ولا لا إسكتشيدة إسكتاطة إسكتانة قرابة وضع شيء سومالي جتشوجة لو يعض باب المندد يمتك تشوجة NFD يمتك تشوجة أشعة يكتشوجة حلقة دير عيشة دير لبض عكسارة أول سومالي خفت سومالي وكم يسيح تغيير طبعا المناجة سومالي وحيك رقيم خايبين أياي وعدو سومالية وحي سكتر أياي وعدو سومالية وهل دين وهل ضلشوا وهل أمة سبب أي كل شيء كلام نبتشوا وحيكون ليس دونا أكثر وعدو ولا يحاسب ولا يكون ليس دونا وحيكون ليس دونا إلهي ما بيعيسى إذا كثر ولا إيمان كله يكون ليس دونا وحينقون دونا أمة قاعدة آية هذا يقيم كأمة هذا الشيء نقون دونا هذه يا ما سنتي ولا ليال وحنحوشنا يا من نماذج اسكتونيرة iyo sidii loo umada Soomaaliyeed midooyinka lagu sameeyay kala qaybin isku dirid in dib loo wada mideeyo dib loo wada walaalayo balanteenu waa taasoo kale waxaan jeclahay inaan iyadana dardaarno shacbiga Soomaalida iyo shacbiga Ormadu waa laba dad oo walaalo ah oo darisa oo diin iyo dal iyo deegaan intooda badan wadaaga sidaa darteed ma culoobi karaan walaalooduna ma ahayn mid iyaga ka timid sidaan anigu aaminsanahay ma aysan ahayn waxay ahayd mabaadiic qorshaysan oo loogu talagalay in lagu cibri dheeraysto ilaa haddana way socotaa mishinkaas iyo shirqooladaasi waxaan filayaa inay weli socdaan waxaan u soo jeedinayaa labada qowmiyadood ee walaalaha ah in ay iscafiyaan wixii ku kala maqan isu celiyaan wixii xaq ay siiyaan wixii hanti ay isu celiyaan gacmaha isqabsadaan walaaloobaan wada dhistaan dalkooda wadadka isugu xaq weyn waynu hubnaataa dhammaanteen waynu wada hubnaa idinka oo intiina badan hadda aan filayaa ama wada ah qowmiyadii Soomaaliyeed booqda walaaladii qowmiyadda Oromada walaalnimo iyo nabad ku wada noolaada iyagana waa hubaa inay diyaar u yihiin inaad walaalowdaan wixii hore dhacay laga toobadkeeno ilaahay loo soo noqdo aayaha ummadda iyo qiyamkeeda in la wada dhiso horumar la wada gaaro in loo soo noqdo inay diyaar iyaguna yihiin waa hubaa guulaysta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi